xanuunkayda sanadkan alla meeqo jiifo daawo la'aan neerbaxaasay tahay xanuunayeen masaaca karma jiifo karo. Sidan ayaa dabiib iyo daweyn u ah hooyo Maryan Xuseen Ibraahim oo ku nool deegaanka Sharey oo hoos taga degmada Daafeed ee gobolka Shabeellada Hoose. Caloosha geela marka la gowraco ayaa dawo u ah sida ay sheegtay maadaama aysan awoodin dabiibka isbitaalada oo sidoo kale ka fog halka ay ku nooshahay. Socdaalkeena ayaa maanta nasiib u noqday hooyadan oo qabta xanuun dhanka neerfaha ah kaasoo dhulyaal ka dhigay muddo 2 sano ah. Waxayna naga codsatay in aan dhibka haysta la wadaagno bulshada Soomaaliyeed. Ma fadhiisan karo afkaas ana ka hadla maahan wax kale oo adduunyo wax uga aalmaha marka uustaas daawo amalood u soo beehday neerbahaasay ka yar oo ku jilcinaayeen daraadada uustaasay tooliisoo giliye hal sacna subaxnimo meesha leekan alxamdulillah rabbil aalamiin ilaahay noo kaan waa ku mahadnaynaa tan kale waxa waay daawo la'aan yahay sadii gacantayda wax ku jir lahaa isbitaalaha iska taga lahaa wax laagna waa haysaa dhibka intaas waay. walaalayaal marka aan iscaawino ilaahayna uu na caawinayaa uu noo gurmanayaa sida aad aragteen hooyo Maryan Xuseen Ibraahim 2 sano waxa lagu daaweynayaa caloosha geelka oo la qufay wixii ku jiray in korkeeda loogu shubo waxaana haya waxa noo sheegtay cudurka neerfaha haayo oo qayb ka mid ah jirkeeda oo dhan uu soo dhaqdhaqaaq lahayn afka kaliya inay ka hadli kartay sheegtay. waxay noo sheegtay hooyadan Soomaaliyeed inaysan gargaar xilligan haysanin caawinaadna u baahan tahay sidoo kale aysan haysan dhaqaale ay isbitaal ku tagto iska daa dhaqaale ee meesha hadda la keenay oo ahayd meel lagu qolaayay geelkan ayaa lagu soo qaaday gaari dameer ku dareemi kartaa inaysan haysan gaari ay ku soo baxdo iyo dhaqaale ay gaarigaas ku soo raacdo. walaalahayga Soomaaliyeed waxaan filayaa inaad kaalin weyn ka qaadan doontaan caawimaadda hooyadan Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay markasta waxaan nahay dad Soomaaliyeed waxaana muhiim markasta inaan isu gurmano oo is caawino marka waxaan filayaa walaalayaal inaad ka qayb qaadan doontaan insha Allah una gurman doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan u sheegnay inaan caawimaaddeeda qayb ka qaadan doono dadka Soomaaliyeed u gudbin doono Ilaahay waxaan ka baryaynaa insha Allah inuu caawimaad rasmi ah u helo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu iyada caafimaad siiyo sidoo kalena haddii caafimaadkeedu uu ku jiro in Muqdisho la keeno oo isbitaal la geeyana uu Ilaahay u fududeeyo. runtii qof maanta aan afka mooy wax kale aan awoodin inuu ka hadlo dhaqdhaqaaq kale aan sameyn marka aad caawimaaddiisa ka qayb qaadato waad dareemi kartaa heerka aad gaarsiisan tahay dadnimadaada. marka qof kasta oo wax u awoodo lambarkan ay leeyihiin iyada sheegaysa bal idinkana u gurmada sida ay noo sheegtay xitaa lambarkeeda EFC ma lahan laakiin afkeedu waxay nooga sheegtay in laga xiriiri karo number uu leeyahay odaygeedii qabay marka insha Allah waxaan filayaa walaalayaal inaad ka qayb qaadan doontaan caawimaaddeeda waa mahadsantiin. nambarkeeda ma ku furna isla markaas ay tahay EFC ma ku furan laakiin nin waayo laho oo ninkeyda oo jooga nambarkiisa EFC u furan nambarkaas kuuga xiriirina nambarka furaha 8 furaha 8 7 69 Cabdilaahi Daacad Bandhiga Production Muqdisho.